nin baan arkay wixii nin masaajidkayga ula tukanayay baa ilmahayga ma jaamacad u dirsaday ilmihii markuu tahriibay maalintii dambeeto baa la soo xaliyay $7,000 soo dir nin masaajidkayga ula tukanayay wuxuu ka ahaa maalgeliye oo lacagtaas markii hore siifan gareeyay ka bacdina ninkii markii la soo xiray xildhibaano badan baa tagay saldhigii markaas waxay dhaheen shakhsigan waxa weeye anaga ka mas'uul ah la soo daayo waxaan soo jeedin lahaa mowduucan laga hadlay waa mowduuc muhiim ah hase ahaatee maanta oo dhan inaynu ka doodno waxaynu inagu taageero u muujinayno aniga waxay la tahay nasiib xumo sababtoo ah haddaynu inagu iska bilowno waxa laga shaqayn lahayahay maadooryaheenu ka hadlayno mas'uuliyiinta baa kow ka ah sababtoo ah tahriibkan aynu hadda sheegayno madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland bil ka hor go'aan buu ka soo saaray kudladii ku shaqaynaysana 90% waa la soo qabtay laakiin haddii aad tagtid saldhigyada magaalada Garowe mas'uuliyiinta ugu badan baa taagan waxayna u doodayaan dad la soo qabtay oo tahriib lagu soo qabtay iyo mid tahriibinayay oo kudladaas ka mid ahaa nin baan arkay wixii nin masaajidkayga ula tukanayay baa ilmahayga ma jaamacad u dirsaday ilmihii markuu tahriibay maalintii dambeeto baa la soo xaliyay $7,000 soo dir nin masaajidkayga ula tukanayay wuxuu ka ahaa maalgeliye oo lacagtaas markii hore siifan gareeyay ka bacdina ninkii markii la soo xiray xildhibaano badan baa tagay saldhigii markaas waxay dhaheen shakhsigan waxa weeye anaga ka mas'uul ah la soo daayo hadda maxaynu shaqeynaa oo booliska lala xisaabtamo mas'uuliyiinta lala xisaabtamo haddii inagu saldhigyadii taagannahay marka waxaan oran lahaa horta inagu aynu gadaal isku xisaabino kan jaadka iyo inagu kaba hadlimayna iyo qamrigii hadda waxaynu maraynaa in awrta la siiyaba ma garatay magaalada waa la isla dhaafay geeli baa la siinayaa marka waxaan oran lahaa sharcigu wuxuu shaqeynayaa markii inagu aynu ku dabaqno inagu iska bilowno dalkii aafadaas waa jira meel kasta waa ka taagan tahay hadda booliskan cusub shaqo fiican bay hayaan shaqada ay hayaan hadaynan ku dhiirigelin oo ayna inagu u dan shaqadooda waxba socon maayaan laakiin intaynu daba taagannahay oo kii qamriga lagu soo qabtay aan damiinanayno kii tahriibta lagu soo qabtay aan damiinanayno oo aan leenahay qofkaanu waa la khalday iyo gaarigaanu saatan ma ahayn gawaari badan oo mas'uul leeyihiin baa qamrada magaalada soo gelisa hadda kama hadli karno jeer aynu kow ka noqono hawshaas waana maasintiin aad iyo aad baan salaamayn